hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa heegan buuxa geliyay dhammaan ciidamada maamulkaasi isagoona ku amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabaan gudaha magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka ee Puntland. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in saacadaha soo socda loo baahan yahay in ciidamada ay qaadaan tallaabooyin kaasoo lagu weerari doono ciidamada taabacsan Jimcaale Takar ee qaybta 54 ciidamada xooga Soomaaliyeed ee Garowe fadhigoodu yahay. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka jira magaalada Garowe iyadoo ciidankii ugu badnaa lagu soo daadiyay goobaha ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale barkontaroolada ee lagu soo galo ee magaalada kaasoo lagu kormeerayo sidoo kalena lagu sugayo ammaanka iyadoo la sheegay in ciidamadii ugu badnaa ee ka soo baxa xerooyinka ugu muhiimsan ee maamulkaasi lagu daadiyay goobaha ugu muhiimsan ee magaalooyinka. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka jira ee Puntland iyadoo saacad kasta laga cabsi qabo inuu qarxo dagaal dhexmara ee labada dhinac ciidamada hogaamiyo Generaal Jimcaale Takar iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ayaa laga cabsi qabaa inay isku farasaaraan ee Garowe. Jimcaale Takar oo Muqdisho jooga ayaa la sheegay inuu ku wajahan yahay magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka ee Puntland isagoo la soo tabinayay inuu wado qorshe ah in la weeraro madaxtooyada ee maamulkaasi ee Puntland iyadoo qorshahana la soo tabinayo warar hoosaado aan si rasmi ah loo xaqiijinin ay sheegayaan in la doonayo in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ama in la wareego ee maamulkaasi sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay ula wareegtay Koonfur Galbeed. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee Garowe iyadoo sidoo kale la soo tabinayo xildhibaanada ka fikirka duwan ama mucaaradka ee maamulkaasi Puntland ay sheegeen inay la garab taagan yihiin Jimcaale Takar iyo sidoo kale inay garab ay siin doonaan ciidamada. waxaa sidoo kale ciidamo horle loo daadgureynayaa xerada 54 ee magaalada Garowe dhawaan ay ku yeesheen ciidamada xooga Soomaaliyeed. ciidankan oo dhawaan tababar u soo dhamaaday ayaa haddana la soo tabinayay in xerada Turki la yiraahdo ee loo daadgureynayay si ay loo dhameystiro ee tababarkooda isla markaana loo howlgeliyo. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan iyadoo magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Boosaaso ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo ciidamada sidoo kale ciidanka la yiraahdo BMPF ta ayaa la geliyay heegan buuxa kuwaasoo loo qorsheeyay inay ka hortagaan weerar kasta uga imaan karo dowladda federaalka Soomaaliya. horey waxay ahayd beelaha deegaanka halkaasi inay galeen heegan buuxa kuwaasoo sheegeen inay taabacsan yihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kalena awaamirta iyagu ay ka qaataan laakiin Puntland waxay sheegeen inaysan cidna u aabiyeeli doonin ayaguna ay leen doonaan sidoo kalena ay saf ay ku mari doonaan dhammaan ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ay geesay war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntlandna waxaa lagu sheegay in gabi ahaanba aanaysan aqoonsaneen ayagoo ciidamadan oo ka yimaaday dowladda federaalka Soomaaliya ama ay taabacsan yihiin waxayna sheegay inaysan marnaba aqbalaynin arrinkaasi. qaar ka tirsan odayaasha ee maamulkaasi ee Puntland iyo salaadiinta iyo sidoo kale saraakiisha ugu muhiimsan iyo xildhibaanada qaar ka mid ah ayaa taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo aaminsan yihiin in halka laga wareejiyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa garab u ah Puntland iyagoo Jubbaland ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in dhaqdhaqaaqyo culus laga sameeyo gudaha maamulkaasi iyaguna ay xuseen inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad oo lagu weerari doono villa Soomaaliya haddii la isku dayo in la wiiqo awoodda maamulkaasi ee Puntland. xiisadu safaraha ayay ka sii baxday lama oga halka ay saldhigan doonto laakiin haddana waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo laga cabsi qabo inay ka qaraxdo mar kale ee gudaha maamulkaasi ee Puntland. Jimcaale Takar oo jooga Muqdisho ayaa ku wajahan magaalada Garowe si halkaasi ugu sii ambaqaado sidoo kalena loo dardargeliyo howlaha dhawaan ay qorsheynayso villa Soomaaliya kaasoo ah sidii loola wareegi lahaa Puntland isla markaana ay ugu dhici lahayd doorashada oo villa Soomaaliya qorsheedu yahay inay ka dhacaan meelo badan sida Galmudug, Koonfur Galbeed oo ay ka dhacday iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo Puntland oo qorshaha soo socda iyo Jubbaland oo ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya inay gacanta ay gaarsiiso iyo maamulka SSC Qaatumo. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa socdo ama iyadoona si aad looga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo dagaal dhexmara ee labada dhinac isla markaana isku farasaaraan ciidamada maamulka iyadoona sidoo kale ay socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus isla markaana lagu doonayo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay gacanta ay ugu dhigto maamulkaasi Puntland. hogaamiyaha Puntland
Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ku hanjabay inay isdifaaci doonaan isagoona sheegay inaysan marraba uu jabi doonin ayna ka adkaan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale dadka deegaanka ayaa kasoo horjeeda qorshaha Villa Soomaaliya ay ku dooneyso inay ku wiiqdo sidoo kalena ay ku farigeliso awoodda ee maamulkaasi. inkastoo baarlamaanka kula fadhigiisa oo horgeyntii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani la doonayay xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulkaasi ayaa haddana kusoo dhamaaday mid fashila. sidoo kalena baarlamaanka uu ku guuldareysay iyadoo kadib markii la doonayay in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani la horkeeno. xildhibaanada labada dhinac inta diiday ayaa gaartay tirada codkooda 22 xildhibaan halka 24 xildhibaan ay diideen gebi ahaanba in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani la horgeeyo golaha wakiilada ee maamulkaasi. xiisadu faraha ayay kasii baxday haddana ay diideen qorshaha. sidoo kale ajandaha waxay ahayd in la goobta baarlamaanka la keeno dhammaan heshiisyada oo dhinac kastoo ay la gashay ee maamulkaasi Puntland iyadoo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ay sir ay u ahayd arrinkan. sidoo kalena ay diidayeen in qorshaha maamulkaasi Puntland ay la soo bandhigo kaasoo ay si waadaxa ama si muuqda ay u soo gaari karo ee dowladda federaalka Soomaaliya. haddana hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qaadacay tagitaankiisa ee baarlamaanka. waayahay dhinaca kalena xiisad adag ayaa ka taagan iyadoo sidoo kale qorshaha uu ahaa in tan iyo 1998 markii la aasaasay golaha wakiilada maamulkaasi aanba la horgeenin wax heshiisa iyadoo dhammaan hay-adaha ajnabi ay joogaan Garowe, Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland aan lahayn wax heshiisa oo dhinaca oo la gaaray Puntland la gashay aan gacanta lagu hayn taasoo aan la ogeyn hay-adaha halka jooga iyo noocyada iyo sidoo kale shaqooyinka ay u joogaan iyadoo Villa Soomaaliya ay ku andacoonaysa in la soo bandhigo laakiin Puntland ay ku adkeysay arrinkaasi isla markaana ay ku sheegtay wax marraba suuragal aysan hayn inay soo bandhigto qorshe noocan sidoo kalena ay u soo bandhigto dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada jaamacadda Takar ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ee ka wada meelo badan ee Garowe iyo Boosaaso iyagoo ciidamadan la soo tabinayaa inay qorshayaal halis ay ka wadaan. Jimcaale Takar ayaa isaguna jooga gudaha Muqdisho ee Soomaaliya iyaduna lagu wado inuu ku wajahan yahay Garowe kadib markii uu dhameystiro qorshaha uu leeyahay iyo sidoo kale Villa Soomaaliyana ay u ballan qaaday taageero military saanad iyo mid ciidanba sidii ay ugu taageeri lahayd isla markaana loo weerari lahaa maamulkaasi ee Puntland sidoo kalena gacanta looga dhigi lahaa. hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa heegan buuxa geliyay dhammaan ciidamada maamulkaasi isagoona ku amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabaan gudaha magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka ee Puntland. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in saacadaha soo socda loo baahan yahay in ciidamada ay qaadaan tallaabooyin kaasoo lagu weerari doono ciidamada taabacsan Jimcaale Takar ee qaybta 54 ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee Garowe fadhigoodu yahay. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka jira magaalada Garowe iyadoo ciidankii ugu badnaa lagu soo daadiyay goobaha ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale barkontaroolada ee lagu soo galo ee magaalada kaasoo lagu kormeerayo sidoo kalena lagu sugayo ammaanka iyadoo la sheegay in ciidamadii ugu badnaa ee ka soo baxa xerooyinka ugu muhiimsan ee maamulkaasi lagu daadiyay goobaha ugu muhiimsan ee magaalooyinka. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka jira ee Puntland iyadoo saacad kasta laga cabsi qabo inuu qarxo dagaal dhexmara ee labada dhinac. ciidamada hogaamiyo Generaal Jimcaale Takar iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ayaa laga cabsi qabaa inay isku farasaaraan ee Garowe. Jimcaale Takar oo Muqdisho jooga ayaa la sheegay inuu ku wajahan yahay magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka ee Puntland isagoo la soo tabinayay inuu wado qorshe ah in la weeraro madaxtooyada ee maamulkaasi ee Puntland iyadoo qorshahana la soo tabinayo warar hoosaado aan si rasmi ah loo xaqiijinin ay sheegayaan in la doonayo in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ama in la wareego ee maamulkaasi sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay u la wareegtay Koonfur Galbeed. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee Garowe iyadoo sidoo kale la soo tabinayo xildhibaanada ka fikirka duwan ama mucaaradka maamulkaasi Puntland ay sheegeen inay la garab taagan yihiin Jimcaale Takar iyo sidoo kale inay garab ay siin doonaan ciidamada. waxaa sidoo kale ciidamo horle loo daadgureynayaa xerada 54 ee magaalada Garowe dhawaan ay ku yeesheen ciidamada xoogga Soomaaliyeed. ciidankan oo dhawaan tababar u soo dhamaaday ayaa haddana la soo tabinayay in xerada Turki la yiraahdo
ee loo daadgureynayay si ay loo dhammaystiro ee tababarkooda islamarkaana loo howlgeliyo. Dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan iyadoo magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Boosaaso ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo ciidamada sidoo kale ciidanka la yiraahdo BMPF ta ayaa la geliyay heegan buuxa kuwaasoo loo qorsheeyay inay ka hortagaan weerar kasta uga imaan karo dowladda federaalka Soomaaliya. Horey waxay ahayd beelaha dega halkaasi inay galeen heegan buuxa kuwaasoo sheegeen inay taabacsan yihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kalena awaamirta iyagu ay ka qaataan, laakiin Puntland waxay sheegeen inaysan cidna u aabiyeeli doonin ayaguna ay leen doonaan sidoo kalena ay saf ay ku mari doonaan dhammaan ciidamada dowladda Soomaaliya. halkaas ay geysay war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntlandna waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba aanaysan aqoonsaneyn ayagoo ciidamadan oo ka yimaaday dowladda federaalka Soomaaliya ama ay taabacsan yihiin, waxayna sheegay inaysan marnaba aqbalaynin arrinkaasi. qaar ka tirsan odayaasha maamulkaasi Puntland iyo salaadiinta iyo sidoo kale saraakiisha ugu muhiimsan iyo xildhibaanada qaar ka mid ah ayaa taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo aaminsan yihiin in halka laga wareejiyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa garab u ah Puntland iyagoona Jubbaland ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in dhaqdhaqaaqyo culus laga sameeyo gudaha maamulkaasi, iyaguna ay xuseen inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad oo lagu weerari doono villa Soomaaliya haddii la isku dayo in la wiiqo awoodda maamulkaasi ee Puntland. xiisadu safaraha ayay kasii baxday, lama oga halka ay saldhigdhigan doonto, laakiin haddana waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo laga cabsi qabo inay ka qaraxdo mar kale gudaha maamulkaasi ee Puntland. Jimcaale Takar oo jooga Muqdisho ayaa ku wajahan magaalada Garowe si halkaasi ugu sii ambaqaado sidoo kalena loo dardargeliyo howlaha dhawaan ay qorsheynayso villa Soomaaliya kaasoo ah sidii loola wareegi lahaa Puntland isla markaana ay ugu dhici lahayd doorashada oo villa Soomaaliya qorsheedu yahay inay ka dhacaan meelo badan sida Galmudug, Koonfur Galbeed oo ay ka dhacday iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo Puntland oo qorshaha soo socda iyo Jubbaland oo ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya inay gacanta ay gaarsiiso iyo maamulka SSC Qaatumo. dhaqdhaqaaqyo culus ayaa socdo ama iyadoona si aad looga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo dagaal dhexmara labada dhinac isla markaana isku farasaaraan ciidamada maamulka, iyadoona sidoo kale ay socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus isla markaana lagu doonayo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay gacanta ay ugu dhigto maamulkaasi Puntland. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa ku hanjabay inay isdifaaci doonaan isagoona sheegay inaysan marnaba uu jabi doonin ayna ka adkaan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale dadka deegaanka ayaa kasoo horjeeda qorshaha villa Soomaaliya ay ku doonayso inay ku wiiqdo sidoo kalena ay ku farigeliso awoodda ee maamulkaasi. inkastoo baarlamaanka kula fadhigiisa oo horgeyntii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni la doonayay xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulkaasi ayaa haddana kusoo dhamaaday mid fashila, sidoo kalena baarlamaanka uu ku guuldareysay iyadoo kadib markii la doonayay in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni la horkeeno. xildhibaanada labada dhinac inta diiday ayaa gaartay tirada codkooda 22 xildhibaan halka 24 xildhibaan ay diideen gebi ahaanba in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni la horgeeyo golaha wakiilada ee maamulkaasi. xiisadu safaraha ayay kasii baxday, haddana ay diideen qorshaha. sidoo kale ajandaha waxay ahayd in la goobta baarlamaanka la keeno dhammaan heshiisyada oo dhinac kastoo ay la gashay maamulkaasi Puntland, iyadoo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ay sir ay u ahayd arrinkan, sidoo kalena ay diidayeen in qorshaha maamulkaasi Puntland ay la soo bandhigo kaasoo ay si waadaxa ama si muuqda ay u soo gaari karo dowladda federaalka Soomaaliya. haddana hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa qaadacay tagitaankiisa ee baarlamaanka. dhinaca kalena xiisad adag ayaa ka taagan iyadoo sidoo kale qorshaha uu ahaa in tan iyo 1998 markii la aasaasay golaha wakiilada maamulkaasi aanba la horgeenin wax heshiisa, iyadoo dhammaan hay-ado ajnabi ay joogaan Garowe, Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland aan lahayn wax heshiisa oo dhinaca oo lala gaaray Puntland la gashay aan gacanta lagu hayn.
taas oo aan la ogeyn hay-adaha halkaa jooga iyo noocyada iyo sidoo kale shaqooyinka ay u joogaan, iyadoo villa Soomaaliya ay ku andacoonaysay in lasoo bandhigo, laakiin Puntland ay ku adkeysay arrinkaasi isla markaana ay ku sheegtay wax marnaba suuragal aysan ahayn inay soo bandhigto qorshe noocan ah, sidoo kalena ay usoo bandhigto dowladda federaalk ee Soomaaliya. ciidamada jaamaca Takar ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ee ka wada meelo badan ee Garowe iyo Boosaaso, ayagoo ciidamadan la soo tabinayaa inay qorshayaal halis ay ka wadaan. Jimcaale Takar ayaa isaguna jooga gudaha Muqdisho ee Soomaaliya, iyaduna lagu wado inuu ku wajahan yahay ee Garowe kadib markii uu dhameystiro qorshaha uu leeyahay, iyo sidoo kale villa Soomaaliyana ay u ballan qaaday taageero military, saanad iyo mid ciidanba sidii ay ugu taageeri lahayd isla markaana loo weerari lahaa maamulkaasi ee Puntland, sidoo kalena gacanta looga dhigi lahaa.